ku soo dhowow Sulaymaan 6 subscribe saar si aadan u seegin muuqaalka xiga mahadsani taageeradaada Ma rumaysan kartaa in wiil dhalinyaro ah uu kombiyuutarro iibinayay isagoo weli jaamacad dhigta kadibna uu shirkad ka dhisay fikrad yar oo ugu dambayn noqotay boqortooyo tiknoolaji ah? Wiilkaas waxaa la yidhaahdaa Michael Dell. Maanta Dell waa magac caan ka ah dunida kombiyuutarrada iyo tiknoolajiyadda. Laakiin sheekadu kuma bilaaban xafiis weyn, shaqaale kumanaan ah, ama maalgelin malaayiin dollar ah. Waxay ku bilaabatay wiil jecel kombiyuutarrada, fikrad ganacsi, iyo go'aan uu ku doonayay inuu wax ka beddelo sida dadka kombiyuutarrada u iibsadaan. Sidee ayuu Michael Dell ku bilaabay? Maxaa ka dhigay ganacsada guulaysta? Maxaase dhacay markii uu isku dayay inuu shirkaddiisa ka dhigo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn dunida? Maanta aan si wada jir ah u raacno sheekadiisa. Carruurnimadii Michael Dell. Michael Saul Dell wuxuu dhashay 3 Febraayo 1965 magaalada Houston ee gobolka Texas, dalka Maraykanka. Wuxuu ku koray qoys taageera waxbarashada iyo shaqada adag. Aabihii wuxuu ahaa dhakhtar ilkaha ah, hooyadiina waxay ahayd stockbroker. Michael isagoo yar wuxuu bilaabay inuu xiiseeyo ganacsiga iyo lacagta. Laakiin waxa si gaar ah u soo jiitay waxay ahayd teknoolajiyadda. Wuxuu jeclaa inuu ogaado sida qalabku u shaqeeyo, wuxuuna si gaar ah u xiisayn jiray kombiyuutarrada. Xiisihii kombiyuutarrada. Markii kombiyuutarradu bilaabeen inay caan noqdaan, Michael wuxuu ogaaday in dadka badankoodu aysan si dhab ah u fahmin waxa ku jira kombiyuutarka. Shirkado badan waxay iibin jireen kombiyuutarro hore loo soo diyaariyey. Michael wuxuu isweydiiyey, maxaa dhacaya haddii qofka la siiyo kombiyuutar isaga loogu sameeyey baahidiisa? Su'aashaas waxay ahayd mid fudud. Laakiin waxay markii dambe noqotay fikrad ganacsi oo aad u weyn. Jaamacadda iyo fikraddii ganacsiga. Michael Dell wuxuu galay University of Texas at Austin si uu u barto caafimaadka. Laakiin maskaxdiisa waxaa aad u mashquuliyey kombiyuutarrada iyo ganacsiga. Intii uu jaamacadda dhiganayay wuxuu bilaabay inuu kombiyuutarro u habeeyo dadka. Waxa uu ogaaday in kombiyuutarka si toos ah loogu iibin karo macaamiisha halkii laga mari lahaa dukaamo badan iyo dhexdhexaadiyayaal. Taasi waxay lahayd faa'iido weyn. Qiimaha ayaa hoos u dhici kara. Macaamiishuna waxay heli karaan kombiyuutar ku habboon baahidooda. Bilowgii Bex Limit. Sanadkii 1984, Michael Dell wuxuu aasaasay shirkad yar oo markii hore loo yaqaanay Bex Limit. Wuxuu markaas ahaa qof aad u dayar. Waxa uu kombiyuutarro ka iibinayay meel yar, isagoo isticmaalaya nidaam toos ah oo uu macaamiisha ula xiriirayo. Michael ma uusan doonayn inuu lacag badan ku bixiyo dukaamo waaweyn. Wuxuu rabay in macaamilku si toos ah ula macaamilo shirkadda. Habkaas wuxuu u oggolaaday inuu kombiyuutarrada ku iibiyo qiimo tartan leh. Go'aankii beddelay noloshiisa. Ganacsigu wuxuu bilaabay inuu si degdeg ah u kobro. Michael wuxuu arkay in fikraddiisu shaqaynayso. Laakiin waxaa jiray hal dhibaato. Wuxuu weli ahaa arday jaamacadeed. Waxa uu haystay 2 doorasho. Inuu sii wato jaamacadda oo uu raaco xirfad caadi ah. Ama inuu fursadda ganacsiga qaato. Michael Dell wuxuu doortay ganacsiga. Wuxuu ka baxay jaamacadda si uu wakhtigiisa oo dhan ugu huro shirkaddiisa. Go'aankaas wuxuu beddelay noloshiisa. Dell Computer Corporation. Shirkaddu waxay sii waday koritaanka. Sanadkii 1984, shirkadda waxaa loo beddelay Dell Computer Corporation. Michael wuxuu xoogga saarayay hal arrin. In kombiyuutar kasta loo sameeyo baahida macaamilka. Macaamiishu waxay dooran karaan qaybaha kombiyuutarkooda. Shirkadduna waxay si toos ah ugu diri jirtay kombiyuutarka macaamilka. Habkan wuxuu Dell ka caawiyey inay yarayso kharashaadka iyo kaydka alaabta. Dell oo si xawli ah u koraya. Sanadihii xigay, Dell waxay noqotay shirkad si weyn uga dhex muuqata suuqa kombiyuutarrada. Shirkaddiisu waxay ku kortay xawaare aad u sarreeya. Laakiin guushu mar walba ma aha mid toosan. Dell waxay sidoo kale la kulantay wakhtiyo adag. Tartanka suuqa kombiyuutarrada ayaa sii xoogaystay. Shirkado waaweyn ayaa la tartamay. Michael Dell wuxuu ku qasbanaa inuu mar walba raadiyo habab cusub oo uu shirkadda ku horumariyo. Dell oo noqotay shirkad caalami ah. Dell waxay si tartiib ah uga gudubtay iibinta kombiyuutarrada oo keliya. Waxay bilowday inay bixiso adeegyo iyo qalab kale oo tiknoolaji ah.
Shirkaddu waxay noqotay mid caalami ah. Waxay xafiisyo iyo macaamiil ku yeelatay dalal badan. Magaca Dell wuxuu noqday mid si weyn looga yaqaan dunida kombiyuutarada. Go'aan weyn Dell oo private noqotay. Sanadkii 2013, Michael Dell wuxuu qaaday tallaabo aad u weyn. Isaga iyo maalgeliyayaal kale waxay shirkadda Dell ka iibsadeen suuqa saamiyada, taas oo ka dhigtay shirkad gaar loo leeyahay. Heshiiskaas wuxuu ahaa mid aad u weyn, wuxuuna soo jiitay indhaha dunida ganacsiga. Michael wuxuu doonayay inuu shirkadda dib u habeeyo isaga oo aan cadaadiska suuqa saamiyada maalin kasta ku jirin. Dell iyo M. Sanadkii 2016, Dell waxay dhammaystirtay iibsashada shirkadda M. Heshiiskaas wuxuu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu waaweynaa ee tiknoolajiyadda. Waxaa ka dhashay shirkad cusub oo weyn oo loo yaqaan Dell Technologies. Shirkaddu waxay hadda diiradda saartay wax ka badan kombiyuutarada. Waxay ku lug yeelatay servero, kaydinta xogta, cloud technology iyo adeegyo kale oo ganacsi. Hantida Michael Dell. Guusha Dell waxay Michael Dell ka dhigtay bilyaneer. Hantidiisa ugu weyn waxay ku xiran tahay saamiyada iyo lahaanshaha uu ku leeyahay Dell Technologies iyo maalgelino kale. Qiimaha hantidiisu wuu isbedbedelaa iyadoo ku xiran suuqa iyo qiimaha shirkadaha uu leeyahay. Laakiin waxa muhiimka ah ma aha oo keliya lacagta uu sameeyey. Waxa xiisaha leh waa sida uu dhisay hantidaas. Wuxuu ka bilaabay fikrad yar oo ku saabsan kombiyuutaro. Maxaa ka dhigay Michael Dell ganacsade guulaysta? Michael Dell wuxuu lahaa dhowr arrimood oo muhiim ah. Hal, wuxuu fahmay macaamilka. Wuxuu ogaaday in dadku rabaan kombiyuutar ku habboon baahidooda. 2, wuxuu yareeyey kharashyada. Iibka tooska ah wuxuu ka caawiyey shirkadda inay si wanaagsan u maamusho qiimaha. 3, wuxuu si degdeg ah u qaatay go'aanno. Markii uu arkay fursad, ma uusan sugin wakhti dheer. 4, wuxuu fahmay muhiimadda tiknoolajiyadda. Wuxuu arkay in kombiyuutaradu aysan ahayn qalab ku meel gaar ah, balse ay noqon doonaan qayb muhiim ah oo nolosha dadka ah. Samafalka iyo bulshada. Michael Dell iyo xaaskiisa Susan Dell waxay sidoo kale ku lug leeyihiin samafal. Waxay aasaaseen Michael Susan Dell Foundation oo taageerta carruurta iyo qoysaska, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo fursadaha nolosha. Tani waxay muujinaysaa in guusha ganacsigu aysan ku koobnayn lacag oo keliya, balse sidoo kale loo adeegsan karo in bulshada wax loogu qabto. Casharrada laga baran karo Michael Dell. Sheekada Michael Dell waxay ina siinaysaa casharro badan. Casharka koowaad, ha yaraysan fikrad yar. Waxaa maanta u muuqda fikrad yar ayaa beri noqon karta ganacsi weyn. Casharka labaad, faham qofka aad wax u iibinayso. Michael wuxuu fahmay waxa macaamiishu rabaan. Casharka saddexaad, dadaad uma go'aamiso awooddaada. Michael wuxuu bilaabay shirkaddiisa isagoo aad u dayar. Casharka afraad, guusha waxay u baahan tahay la qabsasho. Suuqa tiknoolajiyadu si joogto ah ayuu isu beddelaa, Dellna waxay ahayd inay iyaduna isbeddesho. Casharka shanaad, ha ka baqin inaad qaadato go'aan weyn marka aad aragto fursad. Michael Dell wuxuu ka bilaabay meel yar. Wuxuu ahaa arday xiisaynayay kombiyuutarada. Wuxuu arkay dhibaato. Wuxuu helay xal. Kadibna wuxuu xalkii ka dhigay shirkad caalami ah. Maanta magaca Dell waxaa laga yaqaanaa adduunka oo dhan. Sheekadiisuna waxay ina xusuusinaysaa hal arrin oo muhiim ah. Mararka qaar guusha weyn waxay ka bilaabataa fikrad yar oo qof kale u muuqata wax aan muhiim ahayn. Marka haddii aad leedahay fikrad aad aaminsan tahay, ha ka quusan keliya sababtoo ah dadka kale aysan marka hore fahmin. Waxaa laga yaabaa in fikraddaas yar ay noqoto bilowga guushaada weyn. Alto Action. Haddii aad ka heshay sheekada Michael Dell, fadlan like saar, subscribe samee, oo komentka ku qor qofka aad rabto inaan taariikhdiisa ka samayno muuqaalka xiga. Mahadsanidin daawashada, waxaana ku arki doonaa muuqaalka xiga.